بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. كلنتي وعن كسر هذا مركلة iyo cashar cusub insha Allah waxaan sii wadi doonaa course inii ahaa javascript ku qaadan jirnay galaasyada maadaama xanuunkii safmarka uu jiro insha Allah waxaan u bedeli doonaa qaabkan online ka maadaama jaamacadaha xiran yihiin hore waxaan uga soo hadalay ama in marinay wax la yiraahdo conditional statement ama decision making ka waxaan soo qaadanay if else if intaba waan soo practice gareynay casharadoodii waxyaabahoodoo dhan insha Allah maanta waxaan qaadan doonaa switch statement oo iyaduna kamid ah selection statementska ama conditional statementska sidaan u taqaanaanba insha Allah waxaan ka bilaabi doonaa markaa maanta casharkeena switch statement waa intayna casharka bilaabin waxaynu isla eegi doonaa syntaxka waxaan ognahay wax walba oo code la qorayo ama luqad walba oo la isticmaalayo waxay leedahay syntax ama habraac code-ka loo qoro mid walbana mid gooni ah leedahay waa switch statement-igu marka koowaad waxaan leenahay waxaad qoraysaa keyword-ka switch kadib iyadu waxay isticmaashaa waxa la yiraahdo cases case 1 case 2 case 3 iyo midka u dambeeyo la yiraahdo default case 1 waxaan soo qaadanaa keyword-ka switch kadib waxaanu gelinaynaa waxa la yiraahdo expression key code-kii baan halka gelinaa waxaan furaynaa Allahumma musta'an curly brace aynu xidhaynaa furaynaa dhexdooda waxa inoo gelaya switch statement-gii oo dhameystiran way maxaa gelaya markaa cases-kii ma bilaabinaa soo qaadanaa case 1 tusaale ahaan oo kale kadib waxaanu gelinaynaa wax la yiraahdo code-kiisi code block waxaan ibanayaa case-kii tusaale ahaan wixii la fulinayay waxaan isticmaalay switch oo keyword-ka switch sheegaya waxaan inuu switch statement yahay expression-kiisi marka condition-kii baan halkan gelinaynaa tusaale ahaan halkan waxaan keenaynaa markaa cases-kii case 1 case 2 case 3 way badanayaan casesku marba code-kaaga ay ku xidhan tahay inta uu yahay caseskaaga markaad dhammaysid waxaa u dambeeya wax la yiraahdo default case mid la yiraahdo oo marka kuwa sare oo dhan la fuliyo ama laga waayo tusaale ahaan oo kale kii la fulin lahaa waa halkan markaan ku isticmaalinay else oo kale if haddii la fulin waayo tusaale ahaan maxaa la sameynayaa waxaa la sameynayaa wax la yiraahdo else ta la fulinaya if haddii code-ku khaldamo ama condition-ku run noqon waayo waxaa la fulinayay else kan haddii casesku ay run noqon waayaan waxaa la fulinayaa default-ga way syntax-kaasaan marka raaci doonaa insha Allah switch statement-ga waxaan rabnaa markaa inaan dhisno code program yar oo inoo sheegaya tusaale ahaan number inaan qabsano kadib inoo sheegaya maalinta tusaale ahaan kow haddaan qabsano ina siinaya sabti oo kale tusaale ahaan number 2 haddaan qabsano axad oo kale system-saa u shaqeynaya inagoo isticmaalana switch statement raacaynana waxa la yiraahdo syntax-keeda way syntax-ka comment ka dhigo markaa si aan code-ka u helno meeshaan ku qori lahayn way javascript waxa uu horeeya marka koowaad variable declaration inaad variable-kii aynu abuurno samayno waxaan leenahay var kadib waxaan rabnaa inaan xisaabino wax la yiraahdo maalmaha var kadib day baan qoraynaa ama maalin tusaale ahaan variable-kii inoo samaysan yahay la yiraahdo day waxaan ku asan garanaynaa si default iyo tusaale ahaan number 1 oo kale baynu gelinay semicolon baan leenahay kadib waxaanu bilaabaynaa switch statement-ki kaliya waxaan samaynay imika variable-kii baynu samaynay weli maynaan gelin switch-kii switch-ka saanu samayno waxaan isticmaalaynaa variable-ka keyword-kan ujeeda sorry la yiraahdo switch kadib waxaan soo qaadanaynaa variable-keenii ama expression-keenii ahaa maxay day ama maalinta kadib waxaan leenahay semicolon
day baan leenahay. kadib waxaan furaynaa curly braceski, waxaan raacaynaa syntaxku sidii inoo sheegay. halkaa waxaa inoo gelayaa koodhkeenii oo dhammaystiran. waxaan soo qaadanaynaa markaa waxa la yidhaahdo caseski baan bilaabaynaa. tusaalehaan case waxaan leenahay 1 laba dhibcood kadib koodhkiisii, caseki waanu samaynay. kadib wixii soo baxaya waxaan leenahay markaa document dot write brackets. kadib waxaan leenahay waxaad soo saartaa laba kooda sarsare sabti oo kale. qofka geliya waxa la yidhahdaa number 1 waxaan rabnaa inuu usoo saaro sabti, sababtaa waxaan xisaabinaynaa maalmihii. kadib waxaan leenahay break, keywordka break baynu isticmaali doonaa, iyada dib baan ka sharixi doonaa haddii la yidhaahdo. case 1kii sidaasaan ku dhamaynay. aday kugu xidhan tahay markaa inta case ee programkaagu u baahan yahay. tusaalehaan mid waad ku geedayn kartaa 2 3. aan samayno case labaad markaa. waxaan leenahay case 2 sidiisa lamid waxaan leenahay document dot write codes. markaa qofka doorta number 2 geliyana inuu usoo baxo axad oo kale tusaale ahaan. kadib waxaan isticmaalaynaa keywordka la yidhaahdo break. case 3 waa ku dari karnaa, waxaan leenahay case 3 oo ku dari kartaa, waad ka dayn kartaa, hadba aday kugu xidhanta. kadib waxaan leenahay document dot write labadii bracket codeski ka 3 geliyana waa inuu usoo baxdaa isniin tusaale ahaan. halkaa waxaan ku dhamaynay markaa caseski. tusaalehaan waxaan ku joojinaynaa 3da case. waxaa ku xigta break baynu markaa halkaa gelinaynaa. iminka waxaa inoo dhan caseskii oo isku dhamaystiran. variable baynu samaynay la yidhaahdo day. kadib waxaan u assign garaynay 1. waxaan nidhi markaa switch day. kadib caseskii baanu nimi. case 1 waxaad soo saarta qofku haddii number 1 geliyo sabti inay usoo baxdo. tusaalehaan haddii uu geliyo 2na waa inay usoo baxdo axad, 3 waa inay usoo baxdo isniin. waad sii wadi kartaa, isbuuca waa dhamayn kartaa. koodhkana la eegaya markaa ma saxba ma khaladba. haddii uu khalad noqdo kanaa loo soo gudbaya. breaktan waxay samaynaysaa iyadu koodhkii way kala jebinaysaa. tusaale ahaan case 1kii tusaale ahaan waa laga waayey koodhkii ama conditionkii sax ma noqon. waxaa loo soo gudbayaa ka labaad. break waxay caddaynaysaa markaa in koodhkii kaa hore wax uu kala go-ay, kadib mid labaad oo cusub loo soo gelayo ama uu kala hakaday tusaale ahaan. waxaan samaynaynaa kii u dambeeyey ahaa default keyga. defaultigu waxaa la isticmaalaa isaga marka kuwa sare oo dhan ay false noqdaan, wax truya laga waayo. waa halkan ka isticmaali jirnay else if ama else. waxaan soo saaraynaa markaa wixii banaanka usoo bixi lahaa document dot write laba bracket. kadib waxaan leenahay not in range, lama helin oo kale tusaale ahaan, ama maalmaha isbuuca kama mid ahaa. waxaad rabtid baad halkaa gashan karta. koodhkii markaa wuu inoo dhamaystiran yahay. waxaan rabnaa inaan safe garayno markaa oo aan bal eegno qaabka uu soo baxayo. control s baan idhi. kadib waxaan tegaynaa meeshii uu inoo yaalay inoogu safe garaysnaa. automatic waxaan haysanaa sabti baa soo baxday. sabtidu xagee ka timi? haddaan ku noqono koodhkeenii waxaa ku jira case 1. case 1na maxaa ku keydsanaa sabti. conditionkaa la eegayaa ma saxba ma khaladba. case 1ka laga eegay sax mu noqday. kadib waxaa lainoo fuliyey case 1ki. tusaalahaan bal aan gelinna waxa la yidhaahdo 2 oo kale. default waxaynoo ahaa 1. waan safe garaynay, aan ku noqono refresh haddaan samayno waxaa inoo soo galay axad. si lamid a 3 haddaan gelino safe garayno haddana aan ku noqono aan refresh ku samayno browserkeena waxaa inoo soo baxday isniin. bal ka warrama isniin waa ta u dambaysa. haddii aan wax kala gelino tusaalehaan haddaan gelino 7 oo kale maxaa isleediin baa soo baxaya. aan eegno not in range. not in range xagee ka timi? waa default keygii, waa keygii ugu dambeeyey. intan oo dhan haddii la fulin waayo ama ay sax noqon waayaan case 1ka case 2ga case 3ga case 4 case 5 and so on, marka ay sax noqon waayaan defaultigu waa maxay? waa kii ugu dambeeyey ee la isticmaalayay. marka wuxuu noo soo saarayaa
waxa la yidhaahdo not in range. halkan waxaa rabti baa ka dhigan kartaa, ama tusaale ahaan hadaan bedelna waxaan leenahay isbuuca kuma jirto oo kale. wayaan save garayno browserkeena haddaan tagno refresh ku samayno, isbuuca kuma jirto. waxaa rabtid baad halkaa gelin kartaa. haddaan soo dulmarno waxaan ka hadlaynay switch statement. switch statement wuxuu ka mid ahaa conditional statementskii. hore waxaan uga soo hadalnay if t, if else, else if. conditionku isagu wuxuu isticmaalaa waxa la yidhahdo cases, case 1, case 2, case 3. marka hore waa inaan samayno variable baynu samaynay la yidhaahdo day, inoo xisaabinaya maalmaha. su-aalahan number 1 waxaynu ku keedinaynaa, aan rabnaa inuu inoo soo saaro sabti. number 2 axad, saawa inuu socdo. waxaan isticmaalanaa keywordka la yidhahdo switch. kadib wixii la waxaynayay, tusaalahaan day oo kale ama variableka magaciisii. kadib caseski baan loo imaanaa, calibrace baan furaynaa, labada calibrace dhexdooda koodhkii oo dhammaystiran baa inoo gelaya. case 1 waxaan leenahay marka waxaad soo saartaa document.write sabti, kadib break ku samee. breaktu waxay sheegaysaa koodhkii inuu dhammaaday, kadib mid kale loo gudbayo. tusaale linekaas sare uu dhammaaday, ka labaad u gudub. waxaan leenahay case 2, kadib case 3, case 4, hadba intaa case aad doonaysa adaa isticmaalay. ugu dambeyn waxaynu isticmaalaynaa markaa default. haddii waxaan oo dhan sax noqon waayaan wixii la fulin lahaa. defaultku markaa wuxuu soo saarayaa ka u dambeeya. waxaan leenahay default, isagu waxaad raacinaysaa wixii soo baxayay keliya, not in range. ma hayno oo kale isbuuca kuma jirto, hadba kii aad rabtid baad gelinaysaa. halkaa waxaan ku joojinaynaa switch statementigii. waa mahadsantihiin. salaam calaykum.